arki doontaa meeshii aan ilaa u dhaawacay ama meeshii 27 Agosto ay kasoo bilaabatay qaarkiin waxaa laga yaabaa yani ninkaas muxuu qaban jiray inay isdhahdaan ama ganacsi noocee u furnaa inay isdhahdaan laakiin insha Allah fiidiyogan idinku faahfaahin doonaa okay teeda kale karaal ahaada haduu yani muuqaalka si nadiif yani as idinku sii gaar waaye waxaa laga yaabaa inay mobile kusoo duubeen marka insha Allah muuqaalkan waa muuqaal aan aad iyo aad u jeclaaday muuqaalkan ma sha Allah mar waa ku farxay marna yani khayra ay gashay marna waa ka ilmeeyay laakiin dhima laha wax laga soo tagay waaye insha Allah hore loo sii soconaa looma joojinayo laakiin waxaan aad iyo aad u jeclahay inaan idin soo bandhigo oo aad aragtaan meeshii lagu dhaawacay ama meherada ii furnaan jirtay dad badan ma oga waxaan qaban jiray ama goobta lagu dhaawacay meel cid lama ahayd leema ahayd ma oga laakiin insha Allah muuqaalkan aan isla aragno kadib ayaan idin faahfaahin doonaa wixii warbixin ah okay Hajo Bookshop Hajiyo Bookshop yani Hajiyo Bookshop waxa waaye meherad anaga noo furnaan jirtay oo Hajiyo Bookshop la dhahay laakiin Hajiyo Bookshop taariikhi faahfaahin dheeraad ah idinka siiyo يعني مو خالكان ملوسو كوبي كرو وحال فري حاجيو بوك شوب اما مهرت انا اللي وداوعي وحال فري 1984 1984 ممو ارمان شمال فري دوغان كل تاريخ ذا وحال فري الى تاي 1984 ارمان ودودا 1985 لكن وحان وعا اسك شخص ابي حاجيو اساك اوغانا تاريخ الفري الو سيتاي الحمد لله حبيبي حال هذا فيها خير هاي يا ربي هاي وعب المر تليفون كده مشغول وايد اسد اقرا ولا طيب اوكي هاي لا هاي هاي نوديني نودي خير 60 أودعها أنا لكنه في عنا ماما الحمد لله لا العافية غير شركة نخسر كلا يسوي كتير ما ها واحد مجرى برتي عادل يا هون السلام يا بابا رجوعا ايوه دي بقى انا واحد فيديو رواي هاي هاي كويس إن شاء الله مدة تسدو كويس كده ليرة الحوار عوض لا أقول عمرات الداري الله يديك امين هاي امين ان شاء الله ما تسدو كده سبعة بس واحد ويديا موقتها دكانك شمال فور موقتها تاريخ ليس sida aragteen dhalinyartan waxay booqdeen meesha asad lagu dhaawacay haddii ay su'aal ku weydiiyo weligaa ma isweydiisay asad sababta yacni ka dambeysay in intaas oo xabad lagu dhufto wax sababay iyo sababta inkastoo yacni dhalinyarta oo dhaawaceen ay sheegeen yacni wax markaas boonta aysan ku haynin keliya ay ku qaldoomeen intaas ay ka sheegin ka hor weligaa ma isweydiisay sababta loo dhaawacay ma ka mid tahay dadka in badan isweydiiya asxaajiyo sababta loo dhaawacay oo dhibkan loogu geystay horta ugu horeysa qadar waaye balse laakiin waa wixii markaa qofku u dhow oo asxaab aatiin oo kale ama qof fanis ah ku tago kale oo yani dhib gaaro oo kale waa dareemi kartaa xaalkiisa marka weligaa ma kamid tahay dadka isweydiiyey sababta asad loo dhaawacay haddii aad kamid tahay fadlan hoos noola wadaag yani wax ka dambeyn kara iyo sababta iyo sidaa yani isdhihi karta oo loo dhaawacay yani saa umalayn karta hoos noola wadaag aad ayaa umahadsan tahay muuqaalka noo sheer kareen dadkana la wadaag